maamulkaasi ay ka codsadaan dowladda kumeel gaarku inay aqoonsadaan. sidoo kale waxaa isla magaaladaasi maanta lagaga dhawaaqay maamul kale oo cusub. warbixintan waxay noo soo diray waryaheena Maxamed Maxamuud Timcade. kulankan oo magaalada Muqdisho ku yeesheen madaxda maamul goboleedka Awdal State iyo mas'uuliyiin ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo odayaal dhaqameedyo kala duwan ayaa looga hadlay sida maamul goboleedka state looga dhisi lahaa dhammaan gobolada uu maamulo iyo sidoo kale sida uu dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya uu taageero uga heli lahaa. kulanka oo ay ka qayb galeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay ka sheegeen in maamul goboleedka Awdal State ay taageersan yihiin isla markaana dowladda ku meel gaarka uga raadin doonaan aqbalaad iyo sidoo kale in la aqoonsado. xildhibaan Faysal Cumar Guuleed oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya kulankana ka qayb galay ayaa waxa uu sheegay in dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ay ka go'an tahay inay soo dhaweyso dhammaan maamul goboleedyada dalka Soomaaliya laga sameeyay muddooyinkii u dambeeyay. waxaana xildhibaanku uu sheegay in maamulkan Awdal State uu noqon doono maamul dowladda ku meel gaarka ay aqoonsato oo cid walba oo Soomaaliya wax ka qabanaysa waxa la yiraahdaa wiilkan soo dhawaad midda labaad maamul goboleedka Awdal State sida uu hadda ka dhawaajiyay wasiirka arrimaha dibadda iyo sida ay tahayba wuxuu waafaqsan yahay daata waayo waa laba gobol iyo bar Awdal iyo Sanaag iyo Galmudug waa laba gobol iyo bar laba gobol iyo bar waxa kala daata meel gaarka wuxuu qabaa waxa maamul goboleed noqon karta laba gobol iyo wixii ka badan. madaxweynaha maamul goboleedka Awdal State Garyaqaan Rashiid Aw Nuur oo isna ka hadlay goobta ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ka soo jeeda maamul goboleedka Awdal State deegaanada uu maamulo inay taageeraan maamul goboleedkan isla markaana loo baahan yahay in dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya iyaduna ay aqoonsato maamul goboleedka Awdal State. walaalayaal maamul goboleedka Awdal State wuxuu taagan yahay xaq uu taagan yahay wuxuu taagan yahay cadaalad uu taagan yahay wuxuu taagan yahay shacabka reer Awdal iyagu inay ayagoo ka tashadaan oo jiilba jiilka ka dambeeya uu ka dhaxlo dariiq wanaagsan oo loo sii jiray dhalinyarada maanta taagan ee t-shirtska maamul goboleedka Awdal State xiran caruurta dhali doonaan kuwa sii dhali doonaan mustaqbalkoodii baa maanta laga leeyahay waa iyagleen cusub way waalay. dhinaca kale maamul cusub oo loogu magac daray maamul goboleedka Ganaan State of Soomaaliya ayaa maanta looga dhawaaqay magaalada Muqdisho. waxaana mas'uuliyiintii maamulkan ku dhawaaqaysay ay sheegeen in maamulkan uu ka arrimin doono gobolada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo sidoo kale gobolka Gedo. maamul goboleedkan Ganaan State of Soomaaliya loogu magac daray ayaa goobta lagu magacaabayay waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo u badnaa mas'uuliyiinta ka arrimin doonta maamul goboleedka Ganaan State of Soomaaliya. madaxweynaha loo doortay maamul goboleedka Ganaan State of Soomaaliya Nuur Maxamed Macalin Bukrow ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisa la taageero uguna baaqay maamulada kale ee inta badan ka arrimiya gobolada Jubbooyinka iyo gobolka Gedo in aysan goboladaasi sheegin karin. annaga maamulaan samaysanay maamulkeena waxaa Ganaan State wuxuuna ka howlgalayaa Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo Gedo oo aan leenahay annaga oo ah ashiili midle sidaa darteed waa idin salaamayaa waa ku faraxsanahay muhiimada la saaray maanta inaan u qaado Ganaan State madaxweyne u noqdo waxaana ballan qaadayaa inaan dadkaas iyo dalkaas ku soo celiyo gacanta digri midle. muddooyinkan dambe waxaa soo tagayay maamul